kusoo dhawaada muuqaaladeeni ku saabsanay Englishka si fudud ku baro. Casharkani waa casharka saddexaad wuxuuna ku saabsan yahay personal pronouns. Personal pronouns waxaa la yiraahdaa personal waa shakhsi, pronoun waa magacayaal. Marka waa magacyaalada ka hadla shakhsiga ama dadka. So Englishka iyo Soomaaliga waxay kala duwan yihiin. Marka insha Allah taala aan halkan muuqaalka maanta waxaan ku sharxi doonaa shakhsiyada marka laga hadlayo luqadda Englishka waliba magacyaalka. dadalkii la yimide allahayo ii gargaar ilaahayo ii gargaar. Personal pronouns laba meel loo qaybiyaa: subject pronoun iyo object pronoun. Subject pronoun waa markaad adigu ficil ka samaysid. Subject markaad adigu ficil ka samaysid magacyaalka lagu siin lahay weeyaan, ama qof markuu ficil sameeyo magacyaalka la siin lahay ayaa hoos imaanaya subject pronoun. Qaybta kale ee object pronoun ka ahna waxa ayagana hoos imaanayo qofka marka asaga wax lagu sameeyo ficilka lagu sameeyo magacyaalka la siin lahay ayaa halka hoos imaanaya. Hadda af Soomaaliga hadaan anigu kugu dhufto waxaan leeyahay aniga ayaa kugu dhuftay. Hadda adigu dhifatana adiga ayaa igu dhuftay. Marka af Soomaaliga iyo Englishku isku mid maaha. Subject pronoun ayaan marka hore eegaynaa. Subject pronoun marka waxa weeyaan qofka markuu asaga iska hadlayo wuxuu leeyahay I. Okay, marka adiga ficil samaysa I weeyaan oo adiga iska hadlaysid. Qaybta kale objectiga ah anaguna marka adiga wax lagu sameeyo waxay noqonaysaa me. Okay, tusaale ahaan I slapped him. Aniga asaga ayaan dharbaaxay. Okay, aniga ficil sameeyo. Okay, asaga duu dharbaaxa ka waran. He slapped me. Asaga ayaa aniga dharbaaxay. Okay, halka qofka iska hadlaya waa ka. Okay, anaga dhamaanteen markaan iska hadlayno ka waran dad badan markaan nahay we weeyaan we. Okay, we slapped him. Anagu asaga ayaan dharbaaxnay. Okay, anagu dad badan hadii wax lagu sameeyo ka waran anaga markaan anaga wax sameeynin oo anaga ficilku anaga nagu duldhaa waxaan leeyahay okay, he slapped us. Asaga anaga ayuu dharbaaxay. Marka we waa markaan anaga iska hadlayno anaga wax sameeyno. Us na waxa weeyaan waa marka aan iska hadlayno laakiin ficilkana lagu sameeyo anaga on objectiga noqono. Okay, hal qof oo ka hor taagan markaad la hadli waxa leedahay you. Hadda asaga wax sameeyo hadii wax lagu sameeyna waa you isma bedelayso. Okay, tusaale ahaan you slapped him. Adiga asaga ayaa dharbaaxday. Okay, asaga duu adiga dharbaaxa ka waran he slapped you. Asagu adiga ayuu dharbaaxay uu ku dharbaaxay waay. Okay, kaas waa hal qof oo ka hor taagan marka la hadlaysid wiili gabar wuxuu ahaadaba dad badan markay yihiin waa you isma bedelayso yaa lagu khalkhalin. Okay, hal wiil oo ka hor taagan hal wiil oo ka sheekeynaysid amal asaga lama hadlaysid laakiin waad ka hadlaysaa. Tusaale ahaan he asaga marka wax lagu sameeyo marka uu subjectiga yahay waa he. Marka asaga wax sameeyo waa he uu subjectiga yahay. Marka asaga wax lagu sameeyo uu objectiga noqdana waxa waaye him. Tusaale ahaan he slapped me. Asaga aniga ayuu dharbaaxay. Marka aniga asaga dharbaaxana I slapped him. Okay, him. Marka hal gabar oo aad ka sheekeynaysid waxa waaye she. Markay ayada wax sameeyso subjectiga tahay. Marka objectiga tahayna waa her. Okay, her. Tusaale ahaan she slapped me. Ayadu aniga ayay dharbaaxday. Markay ayada wax sameeyso. Marka ayada aan ku sameeyo ka waran dharbaaxida I slapped her. Okay, markay subject tahay waa she. Markay object noqotana waa her. Okay, dad badan oo aan ka sheekeynayna ka waran waxa waaye waa they. Markay ayaga wax sameeyaan oo subjectiga yihiin. Markay objectiga yihiin ay wax lagu sameeyana waa them. Tusaale ahaan they slapped me. Ayaga dhamaantood aniga dharbaaxan miskiinkan. Okay, aniga hadaan ayaga dharbaaxa oo ka adkaada ka war waxaan dhahayaa I slapped them. Okay, they waa markay wax sameeyaan. Them waa marka qofkaas wax lagu sameeyo. Dib u eegis ama review hadaan sameeyno magacyaalka dadka waxa loo kala qaadaa labo. Waa subject iyo object. Subject waa marka asaga qofka wax sameeyo. Object waa marka asaga wax lagu sameeyo ficilka. Subject waxa weeyaan I hal qof kaligiisa iska hadlayo.
we anaga dhammaanteen, you adiga, and he asaga, she ayada, they ayaga. qaybta objectiga ama marka anaga aan ficilka qaabilayno waxa weeyaan me aniga, us anaga dhammaanteen, you adiga ama idinka dhammaantiin, him asaga, her ama her ayada gabadha, them ayaga dhammaantood dadkii badnaa oon ka sheekeynaynay. It waxaa loo adeegsadaa waxyaabaha aan ibnaadinka ahayn sida xoolaha iyo ashyaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.